kulankan waa mid wacyigelin diini oo ay ka qayb galeen dadweyne badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay iskuulka Islii ee xaafada Islii waxaana kulanka soo qaban qaabiyay madalada Ihsaan waxaana halkaasi hadallo ka jeediyo u badan wacyigelin Omar Mohammed iyo Abubakar Mohammed oo laba dhalinyaro oo inta badan dadka ka wacdiya baraha bulshada Sheekh Abdulxaliim Sheekh Yuusuf waa madaxa fulinta madalada Ihsaan ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka diiniga ay soo qaban qaabiyeen waxa maanta aad iyo aad farxad inoo ah inaan soo qaban qaabinay kulan weynahan ay martida nooga yihiin walaalaheen aad kacaanka uga baraha bulshada Abubakar iyo Omar run ahaantii waxay inoo tahay kulan farxadeed oo weyn oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen aad baa lagu riyaaqay farxad badan bay inoo tahay in ay munadamadu ay soo agaasintay Ihsaan oo looga bartay inay agaasinto hawlaha dacwadeed ee dalka Kenya gaar ahaan Nairobi waa munadamo mar walba u heelan fidinta dacwada islaamka iyo maaragtay soo abaabulka dowrooyinka iyo munadamo mu'tamaraadka iyo dowraadka sharciga Abubakar Mohammed iyo Omar Mohammed ayaa markii kulanka ay ka soo baxeen la hadlay TV-ga Honkable waxaana ka hadleen waxyaabaha diiradda ku saareen kulanka diiniga oo inta badan ay ka soo qayb galeen dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho iyaguna talooyin badan u soo jeediyay dhalinyaradaasi ka soo qayb gashay kulanka maanta saa u jeedaan ma sha Allah taala kulan aad u qurban baa halkan ka dhacay asxaab yani kala duwan baa halkan isku yimid waxay ku saabsan tahay waxay tahay sida dhamaanteen aan ugu noolaan lahayn nolol sida farxad deganaansho macaan iyo wix la mid ah oo dhan sida loo hagaajin lahaa hab fikirka dhalinyarta si ay u ogaadaan farxadda dhabta ah meesha ku jirto iyo sida ay u gaari lahaayeen guul adduun iyo aakhiro taas ku saabsan taas ku baraarujinaynay maadaama anaga dhalinyar aan nahay dhalinyartan dhalinyar kale bay luqad fahmayaan taaba maanta ay ku saabsaneed kulanka kooxda badan halkan ka dhacay dhalinyarta waxay tahay dhammaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqti buu nasiyay fursad baa haysana caafimaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiyay aan ka faa'iideysano aan wax qabano ummadayna baa noo baahan nolosheeda aan qurxino yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolol buu nasiyay nolol wanaagsan ma sii nolol fiican nolol xun anaga dooran karna dooro nolol qurux badan gacantada ku burburin noloshaada wanaaji qurxi ummadda anfac adiga is anfac mustaqbalkaagana wanaaji wax kasto waad awoodaan waxa kaliya aad u baahantiin waxay tahay inaad hore u socotaan yani adduunka aad buu u yaryahay waqtiga noloshu way gaaban tahay khibradaha dadka way araga ama dadka noloshu ku guuleystay qaata si noloshiina ay u noqoto nolol adduunka wax tagta khaliifatan fil ard ila sababtoo idin abuuray oo ah yaad dhulka aad camirtaan aad ka faa'iideysataan wixii la mid ah aad tustaan adduunka ama khalqiga kale Ilaahay u abuuray yaad adinka aad ka fadli badantii wax kasta soo saaran kartiin isla markaa ujeedadin ugu weyn lidin abuuray cibaadada aad dhameystirtaan taasna nasiixan ugu talin lahaa ma sha Allah Abdirashiid Obsiye Honkable TV